Assalaamu calaykum waraxmatullah. Barnaamijka maanta ayaa waxaan uga hadli doonaa arrimo ku saabsan neefsashada, sida tahriibayaashii isqarinayay oo neefsashadoodu ka shiftay, iyo ninkii doontu la degtay oo badda hoosteeda ku noolaa 3 maalmood, iyo sida ay arrintaasi ugu suura gashay. Magaalada Calais ee Faransiiska ku taal waa magaalada Faransiiska ee ugu dhow Ingiriiska. Magaaladan ayaa waxaa caan ku ah muhaajiriinta raba inay u gudbaan oo u tahriibaan waddankaas Ingiriiska. qaarkood ayaa marka waxa ay isku dayaan inay isku dhex qariyaan gawaarida xamuulka ee qafilan. Haddaba ciidamada booliska ayaa waxa ay ogaan karaan gaariga ay dadku isku dhex qarinayaan iyagoo aan gaariga gudihiisaba gelin, oo waxay isticmaalaan qalab yar oo gacanta lagu qaato oo kashifaya kaarboonka gaariga gudihiisa ku jira. Haddii marka qalabku sheego in carbon dioxide badan gaariga ku dhex jiro, waxa ay daliil u tahay in dad neefsanaya ay ku dhex jiraan gaariga gudihiisa. Marka arrintaasi ayaa keentay in muhaajiriin badan ay ku fashilmaan qorshahoodii ahaa inay u tahriibaan waddanka UK. Geeduhu waa ay koraan oo waxay ka samaysan yihiin unugyo nool sida xayawaanada oo kale. Haddaba waxa isweydiin mudan xagee ayuu geedku ka helaa cuntada uu ku koro. Ilaa muddo kadib geedku waa koraa oo waa weynaadaa. Waxaa dhici karta in dadku u maleeyaan in geeduhu cuntada keentay inay koraan ay dhulka kala soo baxaan, laakiin arrintaasi sax maaha. qarnigii 16aad ayaa saynisyahan la oran jiray Johann Baptist van Helmholtz waxa uu sameeyay tijaabo uu rabay inuu ku ogaado geeduhu meesha ay ka keenaan cuntada ay ku koraan. Waxa uu soo qaatay dheri oo uu ku beeray geed. dherigaasi ciidii ku jirtay ayuu miisaamay marka hore si uu u ogaado in bal ciidaasi naaqusto markii geed lagu beero. Muddo 5 sano ah ayuu geedkii daryeelayay. Geedkii markuu weynaaday ayuu miisaamay. Geedkaasi waxa uu culayskiisu noqday 72 kiilo. waxa kale oo miisaamay ciidii uu geedka ku dhex beeray. Markaas ayaa waxa uu arkay in ciidii ay naaqustay 60 garaam oo kaliya. Waa wax aad u yar oo tumun haafkeed ka yar. taas macnaheedu waxa weeye in geedku uusan nafaqo badan kala bixin ciidda. Haddaba xagee geedku 72 kiilo ka keenay? Ninkaas ayaa marka waxa uu ku jawaabay in geedku badankiis ka samaysan yahay biyo, oo biyihii lagu waraabinayay ay koritaankiisa keeneen. Laakiin sax maaha jawaabtiisaas, oo jawaabtu waxa weeye geedku cuntadiisa badanaa waxa uu ka helaa hawada, oo geeduhu badanaa waxa ay ka samaysan yihiin kaarboon. Xagee ayay kaarboonkaas ka heleen? Waa hawada. Waxaa dhici karta inaad ogtahay markii ay dadku neefsanayaan ay oksijiin qaataan, carbon dioxide-na soo celiyaan. Kaarboonkaas aan soo sii daynay warshadaha iyo gawaariduna soo sii daayaan ayuu geedku cunaa oo uu ku koraa. Hadda ka hor ayaa waxaan fiidiyoo uga hadlay arrin xiriir la leh mowduucan oo ah in waxa keenay in dadku caatoobaan ay tahay neefsashada iyo kaarboonkaas la soo sii daayo. Haddaad rabtid fiidiyoogaas halkan ka daawo. Marka kaarboonka aan anagu neefsanno oo keena inaan caatowno, ayay geeduhu cunaan oo keena inay koraan oo ku buurtaan. Waxa kale oo ay geeduhu isticmaalaan enerjiga qorraxda si ay carbon dioxide-ka iyo biyaha ay ugu bedelaan sonkor oo uu geedku ku shaqeeyo. May 26 2013 ayaa dooni ku degtay badda Nigeria. Waxaa la socday 12 qof. Hal nin ayaana qaab cajiib ah uga badbaaday, isagoo 3 maalmood badda hoosteeda ku noolaa intaan la soo badbaadin ka hor. Ninkan Nigerianka ah oo magaciisa la dhaho Harrison Okin ayaa waxa uu sheegay isagoo qubaysanayay 5 aroornimo ay doonidu degtay. Waxa uu yiri, markaas ayaan suuliga ka soo baxay si degdeg ah, waxaana iga horeeyay 3 nin oo meeshuna mugdi ayay ahayd. Hal mar ayaa waxaan arkay nimankii iga horeeyay oo biyo qaateen. Anigana biyihii ayaa qol kale igu tuuray. Markaas anoo wali yaaban sida aan ku noolahay ayaa doonidii waxa ay gaartay badda hoosteeda. Qolka aan ku jiray biyuhu wali ma buuxin oo hawo ayaa ku jirtay, oo 1 mitir oo qolka ka mid ah ayaysan biyuhu wali gaarin, laakiin si tartiib ah ayay biyuhu kor ugu soo kacayeen. Ninkaas ayaa marka 3 maalmood neefsanayay hawada ku dhex jirtay qolkaas, oo ma jirto meel kale oo hawo uga timaado ilaa doonida dhinac walba biyihii badda ayaa ka xiga. Hawadaas marka ku dhex jirtay qolkaas ayaa badbaadisay ninkaas oo ka ilaalisay in biyuhu buuxiyaan halkaas. Waa sida haddii aad galaas faaruqa soo qaadid oo isagoo hoos jeeda biyaha dhex gelisid, biyahaasi ma dhex galayaan galaaska gudihiisa, sababtoo ah hawada ku dhex jirta ayaa biyaha u diidaysa inay galaaska dhex galaan. Waa waxa keenay in xoog dheeraad ah loo baahdo si galaaska loo quusiyo. Haddaba ninkaas doontu la degtay 3 maalmood ayuu hawadaas neefsanayay, isaga oo ay soo badbaadiyeen quusayaal South African ah oo loo diray inay meedkiisa soo qaadaan. Ninkan ayaa markii la soo badbaadiyay waxaa la dhex geliyay fuusto ama haan loo yaqaan decompression chamber oo uu ku dhex jiray 3 maalmood. Haddii ninkaas isla markiiba banaanka loo soo saari lahaa, waxaa dhici karta inuu dhiman lahaa.
sababtoo ah cadaadiska badda hoosteeda ayaa ka badan kan dhulka. Cadaadiskaasi waxa uu keenaa in gaasas badan jirka galaan. haddii marka hal mar qofka banaanka loo soo saaro maadaama uu cadaadisku hawadu ka yaryahay kan badda hoosteeda, waxa ay keentaa arrintaasi in gaasaskii ay isku dayaan inay banaanka u soo baxaan maadaama uu cadaadiskii hayay uu yaraaday, taasoo dhibaatooyin badan u geysan karta unugyada jirka, keenina karta inuu qofku u dhinto. arrintan weeye sababta keentay in dadka quusa oo badda hoosteeda aada markii ay soo baxayaan ay si tartiiba kor u soo aadaan oo aysan hal mar kor u soo aadin si jirkooda ula qabsado cadaadisyada kala duwan ay la kulmayaan. haamahaas loo yaqaano decompression chamber si tartiiba ayay cadaadiska u naaqusiyaan si jirku ula qabsado cadaadiska dhulka. waa waxa keenay in ninkaas badda hoostiisa 3 maalmood ku jiray uu ku noolaado haamahaas gudaheeda muddo intaas la eg oo 3 maalmood ah. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullah.